aabbihiisa u geeriyooday, hooyadiisa ayaa u istaagtay inay ku tarbiyayso daacada Alleh, wuxuuna ka qalinjibiyey jaamacad, wuxuuna helay jago aad u fiican oo la farmuuqo. Markii uu doonay guur, hooyadiisa ayaa kula talisay inuu guursado gabar diin iyo dabeecad u saaxiiba, taasoo uga kaalmaysa Alle cabsidiisa una kaxaysa jannada. balse waxa uu jeclaaday gabar jaamacadda saaxiib kula ahayd, taasoo ka soo jeeday reer hanti leh, way qurux badan tahay, hase ahaatee ma laha wax diin ah. Wuxuu is yidhi waxaad awoodi kartaa inaad beddesho aad ka dhigto mid laasimta salaada iyo akhriska qur'aanka iyo inay ka shaqayso wax Alla raaligelinayo. Ugu horeynba gabadhi ma aysan ku raacin wiilka in hooyadiisa ay la noolaato ayaga, hase ahaatee gabadha reerkeeda ayaa waxay ku qanciyeen gabadhooda in wiilka uu haysto jago aad u muhiim ah, hooyadiisana ay dhiman doonto 1 sano ama 2 sano kadib. Waa ay ku raacday. Markii ay ka soo laabatay bishii malabka, maalinkii ugu horeysay ee qoyska kula kulanta miiska cuntada, gabadhii miiska cuntada ayadoo xanaaqsan ayay ka istaagtay waxayna gashay qolkeedii. Kadib markii wiilka cuntada uu la cunay hooyadii, ayuu aaday gabadhii si uu u ogaado sababta ay u soo fogaatay. Markaasay waxay ku tidhi, hooyadaa gacmaheeda ayaa wasaq ah, cuntadana waan ku labalaboonayaa, waxaa lagaa rabaa inaad u samayso weel gooni ah. Aniga mar dambe hooyadaada cunto lama cunayo, waayo joogista ay nala joogta ayaa dhib igu ah. Wiilkii si deggan wuxuu ku yidhi, sidaad og tahayba hooyadayda ma laha cidaan aniga ahayn, waana waayeel, waxayna u baahan tahay inaan xanaaneeyo. Gabadhii waxay tidhi, haddaba waxaad geysaa meelaha waayeelada lagu xanaaneeyo, haddaad samey weysana aniga xaafaddan ma sii joogayo, reerkayga ayaan aadayaa. Wiilkii wuu dhoola caddeeyey, wuxuu yidhi, waa fikrad fiican, hase ahaatee aabbahaaga ayaa isoo wacay, wuxuuna rabaa inaan biri xaafadda wada tagno, maxay tahay sababta? Gabadhi waxay tidhi, markaan cuntada ka soo tegay ayaan wacay, sababtana biri ayaad ogaanaysaa, hase ahaatee hadda waan seexanayaa. Wiilkii hooyadiisa ayaa weydiisay oo waxay tidhi, naagtaada xanuun ay xanuunsan tahay miyay cuntada uga kacday? Dhakhtar ayaan ugu wacayaa, ma aha in ayadoo xanuunsan oo gaajaysan ay seexato. Wiilkii wuxuu ku jawaabay, hooyo isdeji, way nasanaysaa kadib waa ay cunaysaa. Hase ahaatee biri waxaan kuu wadayaa meel wax walba ay isbeddelayaan. Waxaan kaa rajaynayaa in aadan iga hor imaanin ama aadan igu canaanan sida aan wax u sameeyo. Hooyadii waxay tidhi, cadaadis kuguma saaraya inaad ii sharaxda arrinta, balse waxaan ogahay mar walba inaad ku dhaqmayso wax Alla raaligelinayo. Maalintii xigtay waxay aadeen gabadha reerkeeda, cuntadii ayaana la soo diyaariyey. Wiilka sodogiisa ayaa gooni ula baxay, wuxuuna u sheegay gabadhiisa inay ka tiiraayeensan tahay hooyadiisa in ay la nooshahay, waxayna xaq u leedahay inay keligiisa la noolaato. Wuxuuna ugu goodiyey inaysan dib damba u raacayn haddii uu dalabkeeda uu fulin waayo. Wiilkii waa uu dhoola caddeeyey, wuxuuna soo aaday miiska cuntada, wuxuu ka dhex waayey hooyadiisa. Wuxuu ogaaday naagtiisa inay u kaxaysay jikada si ay cuntada ula cunto shaqaalaha. Wiilkii wuxuu eegay gabadha reerkeeda ayagoo dul fadhiya miiska cuntada, markaas ayuu ku yidhi asagoo xanaaqsan, ma awoodo inaan cunto idinla cuno, sababtoo ah gacmihiina ayaa wasaq ah sida quluubtiina oo kale. Waxaad rabtaan inaan hooyadayda ceeriyo, taasoo u soo dhibtootay una soo xanuunsatay tarbiyadayda. Alla maxaad tihiin qoys aad u qalafsan, mana raba inaan xiriir idinla yeesho. Hooyadii ayuu u wacay, markaa waa ay timid ayadoon waxba ogayn. Waa uu qabtay oo xambaaray asagoo ilinta ka daadanayso, madax ayuu ka shumiyey, gacmaha ayuu ka shumiyey. Wuxuu ku yidhi, hooyo raalli ahaanshahaaga igu gey jannada inakeen. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. kadib wuxuu soo fiiriyey gabadha reerkeeda, wuxuuna ku yidhi, janno ayaan leeyahay, adduunyadiina adinka idiin joogta, asagoo ula jeeda naagtiisa. Muddo bil ayaan agtiina idinkaga tegayaa anigoonan furin. Haddii ay rabto inay soo laabato si aan anigii ayada hooyadayda adeegto ugu noqono, waan soo dhowaynayaa. Haddii kale bil kadib warqadayda furiinka ah ayaan u soo dhiibayaa.